بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صباح ونكسن دمان أصحاب هالكن يجو جرتا هالكن فريندز كان كنا هاي دقلكن فيسبوك إيه sidoo kale asxaabta kale ee dunida dacleedan ka wada socono ee aanu halkan ka wada socono aad iyo Jaafar bajamaas aad iyo baan ku salaamayaa soo dhawaada dhamaantiinba iyo bulshada kale ee daawan doonta social media kale haday tahay YouTube-ka iyo meelaha kale faraha badan leh dhamaantiin noo share gareeyo walaalayaal good news dabcan kulli anu iskama hadlo ilaa caawadan asxaabteeda waxa marba afka laga gujinayo cabsana oo hadal gentleman oo hadal telefoonku mar laga dhigin inta sixdaba iska yaray ilaahay baana umada Soomaaliyeed iyo dadku deewa isku wada mid oo isku wada dareen ban waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta ma sha Allah Soomaaliya maanta dabcan anigu horta number 1 intaana barnaamijkayga ba sii dhaxgalinba kiigu nacaya iyo kiigu jeclaanayba iyo asxaabta deyntii hore taqaanina waan iskaraynaa anu waxa la yiraahdaa cabsanaan gentleman guulwade number 1 taageera koobaad ee xukuumadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre hay'ad degan saaxiib qofka halka ay kula maxaad noo haysaa waan ku soo hayaa waan ku sheegi doonaa insha Allah 1 minute document jiro saaxiib asxaabtuna inoo soo badato dhamaantiin waan salaamay bedelu walaal way dhaafto sir maqamana Soomaaliya waxay tahay sir maqabe Allah usaana farxad been ku jirnay damaashaad been ku jirnay madaxweynihii wuxuu marayay dhulkii Soomaaliyeed oo dhan isu dhawaansho ka shaqeynay dib u heshiisiin buu ka shaqeynay wuxuu ku marayay dalka safar la magac baxay safarkii dib u heshiisiinta iyo nabadda ayuu ku marayay safar khayr qaba guulwado ah dabcan haddana te waxa jirta inta shirqola la soo dhigaya aniga la ku soo qoriyo caawa intii la socotay oo dhan si fiican bay la wada socoteen dabcan marba anigii soo qoriyay waxa jira mararka qaar haddaad ciyaartoy tahay ama aad ciyaariyaan tahayba ama aad taageero tahay gool aanad filanayn surna aanad kaba filin meel aanu waxaad kaba fileen baaba meel kaaga soo boodi karaba waad ogeedeenoo gudoomiyihii caasimada ninka caasimada dad baaba ka xanaaqeeyay ee gobolka Banaadir Taabit wuxuu sameeyay shirqool afgembi from hip to down buiskiri ninka ummadda oo dhan baa jeclay anaga igana jeclay taageeraan waay waayo wuxuu ahaa nin dadaal muujinayay laakiin sadabcan nin habaare dhashay hal message waayo wuxuu galay mistake ugu weynaa waxaan oran karaa waxa qaaday way aragnimo laan ninka ragana inuu mowqif leeyahay marka hore waa qurux badan waa inaad hadaf leedahay team marka la socotina waa inaana teamka la shaqeynaysa siyaasadooda iyo sidee u socdaan aad la socotid waayo de waxaad huwan tahay waxa idin ka dhaxeeya dabcan waxa idin ka dhaxeeya waxa la yiraahdo wada shaqeyn baa idin ka dhaxaysa hal team ba wada tihiin laakiin saad iyo jeer qofku marka karaamada laga qaaday waniga ku dhasalaanka siro food uga siibtaaba horta intaanan barnaamijka hore si galan waxaan ku faraxsanahay codkana wada maqashiin doonaa ninkii Taabit horta xilkii wuxuu ku waayay si aan qurux badnayn waxa uu qurux badnaa xitaa uu sooga uu ka sii hordagay waxana uu la socday wasiirka amnigu Muqdisho looga yeeray isaga in fari ku godan tahay waxyaabo fara badan hore horta hadaan nahay midnimo qaran ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii la socon jiray waxa jirtay shirkii ugu dambeeyay ee nimankan maamul goboleedada madaxda ka ama madaxda maamul goboleedada haduu yahay Xaaf haduu yahay Professor Gas haduu yahay Axmed Madoobe waare haduu yahay shirkii ugu dambeeyay ee Muqdisho ka qayb galayeen intii la socotay baa la socotay annagoo midnimo qaranaba waxaan ka hadli jirnay Xaaf ninka la yiraahdo madaxweynaha Galmudug wuxuu diiday inuu shirka ka soo qayb galo Taabit oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada laba xil isku haya uu diiday waxa ku guntaday oo khasab kaga dhigay nimankii madaxweynayaasha maamul goboleedada inuu Taabit shirka fadhiyo ka qayb galo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ka maanta uu adeegsanayo ilaan dabcan wanjalka siyaasadeed marka qaar waxa ma fahmo oo waxa dhacday marka sheeka anaga nagu saabsaneed walahi inaan been sheegay hadaan nahay midnimo qaran gaar ahaan aniga iyo saaxiibkay Cabdi Boodri waxaan inta qaylinayno halka wayna dhageystaan nimankaas xukuumadda deeyin iyo haday mucaaridiin halkaas aan ka qaylino waxaan idhaa waa khasab in la fadhiisiyo
ninka la yidhaahdo taabit iyaguba waa guddoomiyaal isaguna waa guddoomiyaha midnimo qaran inantaan aadka u jecelnahay ee la yidhaahdo jamiila jaamac jibriil cabasho ka timid dhanka xukuumadda waxa macarabaabayo ayaa soo gaadhay oo aniga iyagu saabsan cabdifitaax boodhari oo ay u gudbiyeen nimankii maamul goboleedada kuwa maamul goboleedada ka madaxda hadduu yahay professor gaas hadduu yahay xaaf hadduu yahay ninka la yidhaahdo allahu mustacaan dee intaa shantaa maamul goboleed ba inta madaxda ka ah waxay dhahan nimankaa yarhana laga qabto gaar ahaan ninka cabdifitaax boodhari lahadaya cabdisalaan jitilmaan ee bahda midnimo qaran nimankaa idinkeedin taageeraan nimankaa hana laga qabto nimankaa doonaya in lala fadhiisiiyo taabit wuxuu ahaa ninkaan saa ugu dagaalamayna ee aanu lahayn waa khasab waa guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho intaasoo population baa ku nool intaasoo milyan baa ku nool saasaan ugu hanweynin waanu dagaalamayna ummadda soomaaliyeed oo dhanna dabcan way u hanweynin waana u wada dagaalamaysa haddaba maxaa dhacay miyay ahayd maanta miyayna qabatay inuuna niyad jabiyo oo ummaddaa ilaahay ee jeclaatay waxaama rajeynayaba mustaqbal wanaagsan oo siyaasadeed baa u lahaaba waxa dhacaysay hadduu samri lahaa oo aan qabyaaladan iyo waxaana jiidan lahayn iyo waxaan lagu magacaabo damul jadiid iyo kooxdii ka horreysay waxaan qabaa hadduu soo tartami lahaa inuu madaxweyne soomaaliya uu noqon lahaaba haddaba walaalayaal waxaan idiin soo gudbinayaa oo fideogaan bartan ku hayaa dabcan anigu kama seexana haddaanu nahay baarna midnimo qaran iskamana hadalno qaar baa caawo dhan nagu lahaa u jawaabo ha biqlayso gruubo war ha biqlayso gruub xaal abuur bay wadeen waayo madaxweynaha digreetu ku magacawnaa ninka lahaa taabit illegal wax la yidhaahdo iyo ku qabso ku qadimaysta qaynuun baynu ka samaysan qaynuun baa jira ninna sharciga kama sarreeyo hab qabiilna uu ku ololeeyey wanjal waxaanu samaynaya dee wanjal iskaba qaawanba oo aan qof sharci yaqaana ama nin siyaasiya ama nin ummadda soomaaliyeed damac ka hayo aanu ku dhaqmin oo ay ku dhaqmaan dee dabacan robriga oo kale iyo waxyaabaha aan loo baahnayn sharcigiiba dushu ku qaatay markuu dareemay in xilkii laga qaadayo wuu degdegay saaxiibkii aad iyo aad baan ugu xumahay waayo isagunbaa dabacan u xis yeelay horena waan idinku uhi ninka ka hor yimaada xukuumadda nabad iyo nolol isagunba isduqeeyey bal malaa codka jeclaan lahaydeen oo dabcan tv-ga qaranka soomaaliya iyo digreetada madaxweynuhu soo saaray marka horena digreeto madaxweynuhu ku magacaabna de waxaana lagu bedeli karaa digreeto madaxweyne laakiin se aniga is magacaabayo oo waxay magacaabayo guddoomiye ii dooranaya guddoomiyeyaasha waaxaha ama degmooyinka gobolka banaadir ama caasimadda muqdisho waa illegal wax sharcigana maaha caasimaduna oo mama baahnaba maamul goboleed waayo waa caasimadii etoobiya waa federaal adisaba dee maamul maaha waxa meelaha kalaa maamulaa hadday yihiin kililadaa kale ay u sameeyaan intaa federaalka laftigiisa caasimad iyo maamul goboleedna isma qabanayso waa maskax iyo fikir aan shaqaynayn waa waxyaabaan had iyo jeer haddaan cabdisanaanahay dadka isku jirno waxaan isku jirnaa kuwan laanlaantiya waxay sheegtaa war maamul baad sina dowladma noqon kartaan qaar kale waxaan isku jirnaa federaalku ma fiicna kuwana maanta qaar ninkaa taageeraya odagaa waxaan isku haysanaa gobolba war waxaad ku weyday gobolnimada aad ku weyday maamul ku heli maysid maamulku muxuu soo kordhiyey hargeysa waxa ka taagan oo ay awoodi kari waayeen inay leyrhka biro u samaystaan oo guryihii hore ka taagan buntland waa idinka arkaya maxaa horumara dadka nabad caasimadan baabad haysataa caqligaaga iyo garaadkaagu waa sidee okay bal haddaba waxaan dhegaysiin doonaa hadal badan looma baahna inoo sheergaraya billah calaykum dalku sharci buu leeyahay shuruuc baa lagu kala dambeeyaa ninkan madaxweynaha soo magacaabay iminkana madaxweyne soo magacaabay unbaa haddana dib guddoomiye kale u magacaabay waxaana guddoomiye loo doortay injineer yarisow halkana ka maqli doontaan insha allahu tacaala waa telefishinka qaranka soomaaliyeed SN TV iyo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana uu wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa lagu magacaabay xilalka soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta markuu wadatashi la sameeyey islamarkaana dhageystay talooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynuhu waxa uu shakhsiyaadka hoose u magacaabay xilalka kale ah mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yarisow waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed cabdulaahi maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda mudane ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta
aadan sheekh cali fiidow waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud halka xogeyaha guud ee gobolka banaadirna loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen wareegtadan oo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa si rasmiya loogu magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa iyo xogeyaha guud ee gobolka banaadir hadduu allaha wadada raali ka noqdana waxaad kala socon doontaan wararkii barnaamijyada soo socda falanqeyno la xidhiidha magacaabista uu madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sameeyey sidoo kalena waxaa wareegtada aad ka daalacan kartaan websaydyada warbaahinta qaranka ee raadiyo muqdisho soona iyo telefishinka qaranka insha allah aad iyo aad baa umahadsantihiin walaalayaal waa laga soo gudbay xilligii ku qabso ku qadimaysid ninkaana anu waxaan u rajeynayay nin dunida iyo shuruucda caalamiga international looga dee wax ka yaqaana oo ku noolaa inkastoo had iyo jeer qofku markuu rabo inuu wax xumaynayo nin meel u caddahay bay soomaalida ku maamaan meeli ka madow dabcan ninkaa yare siyaasiga oo dee siyaasi ahay ummadda ilay jecleed karaamadana hibehe bogsiiye habeen layskama qaado gebigiisba mar quri suuda siiroo gareeyba anagii baabay sabreys nagu noqotayba war nimankeegii xukuumadda aanu taageera number 1 walaaleel waan idin kusoo celin doonaa qofka aan maqlaynin dabcan mar labaad baan kusoo celinaya maxaan u taageeraa xukuumadda waxaan u taageeraa xukuumaddu waa rajdeedii aniga haddii qarankaygu guulaysto madaxweyneygu hadduu guulaysto iyo xukuumaddaydu waa guushayda tanna waan taageerayaa kii kala yimaadana waan taageerayaa qof kastoo garaadlo maskaxdiisu caad u shaqaynaysaana wuu dareemi karaa haddii maanta soomaaliya ay guulaysato oo xukuumaddu guulaysato inaynaan maamul goboleed ama xaaro keeniyaan qaxuunti shaqola'aan burbur dhibaato intaabaynu ka baxayno qabiilna aan waxba tarin balcar qabiilka qura ee meel ka soo daayay ama dabcan xitaa kuwan ganacsadayaasha way saamaysaa dowlad la-aantu had iyo jeer waxay sitaan markay China tegayaan markay dunida xitaa la samaynayaan business deal markay la galayaan the first question ka la weydiiyaa waxa weeyaan license baa la weydiiyaa passport baa la weydiiyaa haddii dalkeenu uu jiri lahaa waagii dalku jiray insurance bay xitaa geli jireenoo maraakiib baa loo soo rari jiray markii dowladda waa lagu aaminayaa dowladda la xisaabtamaya laakiin markaad zero tahay waa kuwa soo Kenya passport-ka u doonayaan Ethiopia colban ahayba ay u doonayaan passport-kii dowladdan yar ee aynu dariskanahay ee Soomaaliyeed ee Djibouti ay passport-koodii qaadanayaan kuwa dawooyinka keena kuwa cuntooyinka keena kuwa shidaalka keena lama weyd passport-kiina uu qiimo dhacay waayo dowladnimada meesha ka baxday sharaftaadii baa meesha ka baxday marka walaalayaal qolada kale ee gadaal kala soo xidhay kullayda anigu waa cabsalaan xoogtan mar labaad idinku soo celinaya sharciga iyo nidaamku hadduu shaqayn waayo Soomaaliya adeerayaal dib baynu noqonaynaa halkii aan hore u taagnayn bayn rag baa dabadayna haysta anigu taabit ma qabo in fikirkan isee ka yimi laakiin se rag baa ku guuray aan doonayn inay Soomaali israacdo in la midoobo waa ragga dee qoranaya muqdishaaniga ah maalina qoranaya maxaa waqooyi loo jarayaa waqooyi maxaa loo jaray dadaada ay jarayaba adigaagan maalin kastaba dowladda ka hor imanaya anigana ay fogeynayaba waxaa doontid ku hadal anigu qabiil iyo waxaa waan ka soo gudbay arrimaha qabiilka dadkana waxaasan isku wada sag ambitionna waan leeyahay dabcan aqoon igu filan waan leeyahay iminkana aqoon baan bartaa waan sii kororsanaya bay correspondent ma wax ku dhigtaa Soomaalidu way ku wareeraan miyaan wax baranayn miyaan sidan waray distance learning baa wax lagu bartaa adigoo bartaada jooga mustaqbalka dalkayga ayaan wax ka noqonaya duna carbeed sidoo yiri dadka gees lugu qabiil waxba lagu ma noqdo Soomaalida Ilaahay ummadeeda Ilaahay haddaan noolaado Ilaahay dib naftii daayo horta goor la dhimanayaba Allahu a'lam laakiin dadkaygaasaan wax ku noqonaya qabiil yaroo hoose iyo juqraaf garnaqsigiisa iyo qoloqoladiisa iyo balaayadiisana uma baahniba waayo waan ka gudbay saax marka ninkii qabiil ilaa hadda daba taagan ee qurbaha joogay dunida kala nooca ku dhex nool ee wali qabiilku ku yahay walaa inaad gunay ma jir waligaana maskaxaadu way fooraysaa maskaxaada foorta ninkan taabit nugu inaadar qof iyo qaran baa qaalisan koox iyo qaran ma qaalisan qofka ka qiimo badan hadaa dalkaaga jeceshay jeclow kuwa maanta isaga ku keenay anagu meenu naqani taabit kana imka nugu weynaysaan wax uu qabanayay waa sax alright wax uu qabanayay hadduu wax khalday de waa bilaadan wax buu khalday yaa noo keenay madaxweynaha dikreeto ku soo magacaabay Soomaaliya maantana madaxweynihiisa iyo siyaasadiisii ayuu khilaafay sharcigu wuxuu dhigayaa tiimka aad la shaqeeysid soo dadka ma ciyaaraha daawada tiimku maanu coach lahayn marka imika tiimka soccer tiimka oo kale ama football tiimka oo kale de coachka hadduu ciyaartooygu khilaafo markuu casharka u dhigo leeyahay sidaa u soco liiska waa laga saaraya ha u qeylqeynaysa
ninka lahaa taabit madaxweynaha inoo keenay madaxweynaha siyaasadiisii uu la jaan qaadi waayey that's all marka he has to out he has to get out waa inuu meesha ka baxa haddii kale waa inuu xukuumadda la jaan qaadi karaa waana soo dhaweynayaa dabcan mas-uulka cusub ee maanta la magacaabay waanu ducaynaya waayo maaha hambalyadoo qudhayn waxma tarto waxaan ugu ducaynayaa isaga iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale saaka la magacaabay in allah raxmaanka oo xilkaa loo dhiibay uu ku asturo kuna guulaystaan waxaana sharafa dadka qaar baa waxay hadhow odhan doonaan dee wasiirkiisii warfaafintaa sida war intii isfahmaysa ilaahay umuu madaxweynuhu ka dhigto xogayihiisa gaarka ama ka ugu dhow mu ka dhigto qofkii kula shaqayn kara ee aad isfahmi karaysaan aad isku aragtitiin ayuunbaa wax kuwa ka laakiin si aad kala aragtitiin ilaahuma walaalka ahaado anigu maanta walaaladii qaar baan kala aragtinay dad aan wada dhalnoo isku aragtinayna way jiraan qaar aanaan qabiilna soomaali isugu nimaado kolley qabiilkeena guud waa soomaali oon isku aragtinahay oo isku fikirnahayna wuu jiraan oo aan wada shaqayn karno haddaan meel shaqo isugu nimaadno aanu istaageeri karno aan fikradooda la dhacayo qof baad adigoo aan garanayn baad halkaa ka dhegaysanaysaa masalanaysaa wallahi that person is nice because waxa ku soo jiidanaya waxaanu ka hadlayo sonaysaa niyo pointiga qofkaasaan kula socdaa waa idinkoo tiimankaba waa taageertan marka naga daaya qabyaaladan iyo qurunkan iyo taabit baa waxana taabidada sharciga kama weyna kii noo keenay baan iminkana dabcan xilka ka qaaday mar labaad baan idinku soo celinayaa qolyihiina kolley gadaali gala soo xidhiidhay war saxaafadeedka ama dikreetada ka soo baxday madaxtooyada soomaaliya xafiiska madaxweynaha sorry way sii dhammaanaysa horta walaalayaal iga raalli ahaada commentiyada imka ma akriyo qaar baad iska soo caytamaanu qof caytamo ma joojiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed ma maqlaysaan horta muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana uu wareegto ka soo baxday xafiiska intiina halkaa dabcan iga daawanaysa walaalayaal waxaad isoo qortaan bal codkan inaad maqlaysaan iyo in kale waa codkii tv-ga qaranka ee soomaaliya oo dabcan waayo walaal kor baan u qaadayaa laakiinse dinaa codka maqashaan unbaa fiican haddaan kor u qaaday jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxaa lagu magacaabay hilalka soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo markuu arkay soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta markuu wadatashi la sameeyey islamarkaana dhageystay talooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweynuhu waxa uu shakhsiyaadka hoose u magacaabay xilalka kale ah mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriso waxaa loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed cabdulaahi maxamed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasadda mudane xuseen maxamed nuur waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maamulka iyo maaliyadda marwo basma cumar axmed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta aadan sheekh cali fiidow waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud halka xogeyaha guud ee gobolka banaadirna loo magacaabay cumar cabdirasaaq xuseen wareegtadan oo kasoo baxday xafiiska madaxweynaha waxaa si rasmiya loogu magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir ku-xigeenadiisa iyo xogeyaha guud ee gobolka banaadir hadduu allaha wadada raali ka noqdana waxaad kala socon doontaan wararkii barnaamijyada soo socda falanqeyno la xidhiidha magacaabista oo madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo sameeyey sidoo kalena waxaa wareegtada aad ka daalacan kartaan websaydyada warbaahinta qaranka ee radio muqdisho soona iyo telefishinka qaranka insha allah xilku walaalayaal waa wareegto aad iyo aad baan idiin salaamaya dabcan faalana ilaa xalayta kamaan dhiibin laakiinse waxba walaalayaal anagu sirteedana waanu adkaysanaa wax kastoo naloo soo gudbiyana waan la soconaa xukuumadeedana waanu ku hambalyeynanaa waanu ku taageersanahay dabcan saan sheegayba de anaguba waxaanu leenahay ambition wax lahahdaa ama fikir baan waanu la shaqaynanaa xukuumadeeda waanu taageernaa haddaanu nahay dhammaan bahda midnimo qaran kamana hordhacno dabcan ilaa xalayto waanu arkaynay qolyo lahaa hebel baa la magacaabaya iyo hebel laakiinse qolyihii la socday ee ugu dambeeyey waxaa aan idin soo gudbinaya marba qoraalba waxaan idinku soo gudbinayay oo dabcan lahaa gacantaaba lagu hayaa bedelkiisii taabit oona lagu dawaqinayay habiqlayso groupna walaalayaal qolyaha iga soo codsada had iyo jeer habiqlayso group walaal wasiir kasta ahaada laakiin qofka isfahmayaan baa fiican qolyo igu lahaa ilaa xaata habiqlayso u jawaab iyo walaal anagu
uma jiro ama uma nooli inaan habiqlayso group u jawaabo waayo habiqlayso group waxay doonaan bay ku hadlaan propaganda ay sameeyaan isku fikir ma nihiin isku aragtini ma nihiin qabiilkay doonaan sheegtaan anagu kuwa iskuma mashquuliyo aad iyo aad baan idin salaamaya dowladnimadu ha guulaysato waanu soo dhaweynaynaa waanu ducaynaynaa dabcan mas-uuliyiinta dhammaantoodba madaxweynuhu uu magacaabay dhammaan waanu ducaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idin salaamaya inooan sii faafiya dabcan gaadhsiiya walaalayaal clipkan dhammaan bukaan socdoo dhan iyo kuwa dowladnimada diidan iyo kuwa midnimada kasoo horjeeda iyo kuwa annaga hadafkeega iyo ambitionkeega hortaagan nin kasta oo qabiilku doonaa sheegto oo dowladnimada diidan oo soomaalinimada diidan wuxuu kasoo horjeedaa mustaqbalka iyo rajada dhalinyarada soomaaliya rag iyo dumarba iyo dalku inuu wax noqdo aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu